sababaha keena inuu qofku saciid noqdo si kale haddaynu dhigno nolol raaxo iyo nafis leh oo aan diiqad iyo cidhiidhi lahayn inuu qaadan karo وكل الناس يطلب ذلك وأن لبعضهم dadkoo dhami taa way wada doonayaan laakiin darbaan gaari karayno dariiqadeedii aan maraynin dadka qofba meel un bay qodaxi kaga taagantay qofba meel un buu musbaar kaga taagan yahay mid waliba meel un buu ka yaabyaabsan yahay marka sidee baa noloshu nafis ugu noqon kartaa qofka nolol iska nafis leh oo warwarka iyo qulubka iyo qalaqu ku yaryahay sidee buu ku qaadan karaa adduunyada wax badan baa la baadi doonaa maanta laakiin islaamun baa lagu hayaataa sababaha sacaadada lagu gaari kara islaamkeennu uu sheegay nolol raaxo leh way badan tahay laakiin 30 ku dhowaad ayaynu ka qaadan doonaa inta waqtigu inoo saamaxay insha Allah inta waqtigu inoo saamaxay waana waqti kale ka dhigan sababahaas waxa kamid ah qawaacidka loo sameeyay fakir washkur inaad fikirta mahad noqdana an tufakkir wa tashkur markaad hareerahaaga eegto wax badanna aad fikirto waxa nicmada Ilaahay uu ku siiyay inaad hoos u eegto waxa dhici doonta in waxa kugu dalacan uu ka dego Ilaahay baa wuxuu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan ma koobi karaysaan caafimaadkaaga aad eegi amnigaaga cunadaada dharkaaga iyo hawadaada aad neefsanayso iyo dad intaaba waayay waxaad garan doontaa markaa adu waabad warwarsantay dad badan oo dhaantaaba inuu jiraba ilaahayna inooma yaraysan aad buu inooga waaniyay taasoo wuxuu asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina isagoon dadka badh la hadlina la wada hadlay wuxuu ilaahay nicmooyinkiisa uu idin dhammaystiray teeda muuqata iyo taqarsoonba nicmada ilaahay way badan tahay tu ku muuqata iyo tu aana dareemayn هناك نعم يسمى دقائق النعم وعجرا نعموين لا يرادون نعموين كقرصون oo qofku uu garto un maalintu waayo waxaanunsanaya dhakhtar baa u sheegaya wuxuu oranayaa waxa iyo noocaas ayaa ka maqan oo aad weydo cudurkani ku haya oo ma baan aqoon waxa inaan hayste nicmada berigi hore inay jirtaba ma aqooninba إلهي بأمرك أوحد فبأي آلاء ربكما تكذبان نعموينك إلهي تيبا بينيس بدنها بينينا نبي محمد نوحد عليه الصلاة والسلام يساقوا فكر كي شكر إن فريا وحا ايكتان دادك إذن كهوسايا مركا الدنيا دا إيا وحا تيبا يسان نقطه دادك إذن كسر رأيها ايقنا سيدا نعمة أفضل يتسنين إلهي وديسي ومروا البعيد با كهوسايس وفي أنفسكم أفلا تبصرون بل أدنا فيه نون فينا ميدان أركين بولهايد ما فكرتان ونفت آذو إيكتان وحو إلهايد السيئي وحكام قننت هذيقيس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها مركلوا إلهايد الددك قاربان نعمة إلهي قرنا يهدنا استيتينيا نعمة إلهي ذي قرنا ينو استيتينيا قاعدة الله بعضو حوية ما مضافات وحي تغيو تغي wixii ku dhaafay wuu ku dhaafay idan markaa waxa la yiraahdaa tadhakkuru al-maadi wa tahazunu qatl lil-iradati 'inda al-'uqala qatl lil-irada wixii ku dhaafay inaad xusuusato oo aad ka murugoto aad isugu adkayso iraadadaadii iyo go'aankii aad qaadan lahayd bay dabcisaa shaygu islaamku sabirka u yaqaano وقتل للإرادة قفك أدو عيل كما كرن نغضه وحي هراء صوم مرأي باع وحنبار سنية هاي هم يقودي إرادة يلان كرماية هراء صعون كرماية أرنت النوع عاصو كلا عند العقلاء تضوى ولا تروى بالإله ذاتك عقل قاله ولا اللابا ولا ورياه لكن لما سي وضوضه هل لقى فايدة استتجابوينك يدعدوينك لكن قلبك أغاني ديشان معها
إلهي بأوحد تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم كوا سويت جانا أمتك تبعها يعني حبها كور ورينا كور ورجينه واحد لا صوص وحصص على كورما عندها سنوات مهم من أسباب السعادة وحكم إذا يومك يومك مالين كاغو ما أنت ذا شوكت مالين كاغو ومالين كات شوكت سيدا دلادت بقن كأصحاب توحوا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ديواغو كوبريو قبل دعها سوغين هدي قبل كوكور دعانا وكوبريها سوغين مالين كاغاسم وحدو قيبينيسا ساعديهيسا سندا iyo ayaamo iyo bilo ayuun baad u qaybinaysa daqiiqadihiisana waad kala jiidaysa isagu baad ka faa'iideynaysa waxaad oranaysaa maanta ma haysataa خلاص marka maanta sidaad uga macaashtaa un weeye warkaaguba Allah wuxuu wa khud ma aataytuka wa kun min ash-shaakiriin waxaan ku siiyay qaada buu Ilaahay oo igu mahadnaq waxaana ugu muhiimsan maalinkaad haysato ugu muhiimsan أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير قد يدعم رجو القرآن كورمية وحكم من أسباب السعادة أترك المستقبل حتى يأتي مستقبل كإسكده إلى أنتو يمرأيو مستقبل تذكر كودبا مستقبليين ليرادا قار كودنا ماضيين باليرا فضياشية وأيال كماضيين باليرادا ما waxaanu arki jirnay waxa maanta ma haysta ayuun bayda ragna ragii hore weey warna waa intuu yiri bari ay cayn ka ahayd anagoo halkaas balaayaba imikay joog wixii hore uu yar wil maadigu la nooli wal aakhir mid kale noo dhalinyaro ana waxa ku weyn mushkilada mustaqbalka inantiina ki yaraaba waxay leen mustaqbalkaygi hadaanan tahriibin ma mustaqbal banaya halkan mustaqbal mushkilatul mustaqbaliyin ba kuwana la yiraahdaa إلهي بأوحد أتى أمر الله فلا تستعجلوه أرنكي إلهي وإيمان دونا وحبها الدجاج السنين وماض بمعنى المستقبل أرنكي إلهي وصوص على وحبها الدجاج السنين وحو إلهي كين يو إيمان دونا سادة الأدية بلا الأحداث لا تسبق لألا تكون إجهاضا نعدوين كالصوص على الله ما هرنعه سأنو أرنكو دعسو النقل لما قارين به الأحداث لا تسبق ولا أدرس كراه هلادين يدرس بالله هذا ولا قصي فكري كراه إن شاء الله هدي ساعة وحنقدان ولا فكري كراه لكن لجما ورورو لا يسكم أنا ديبه سيدا درادات بوح الله هذا ده مراها بولا ديدا إن لقوسته إلى بسلادا مراها أقول إذا لقوم قوسته سيانا فعوذ ولومين فلا تخاف الجوع والمرض والفقر هكعب سن المستقبل إن قاتش كدليسو إن عذر كدليو إن عبسي كدليسو ورور كاد مستقبل كقب تكده إلهي بوحد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يعيدكم مغفرة منه وفضلا شيطان كوحو يدين يبوهيا فقرقة يدين يبوهيا حبيه الميسد بقرآن سيدا هذا أنت كسي سعوت shaqalaantani na jirto guur la'aantani na jirto meeshana aad joogto alla waxaad helaysaa ma jiro faqrigaas iyo foolxumo isku rakiban buu la taagan inuu ku yabo ilaahayna dambi dhaaf iyo fadli weyn ayuu ilaahayna idin yabo haya wax weyn weey marka mustaqbalka ilaahay ha loo daayo qofku sababihiisa ha qaato laakiin warwarka laga hadlaya warwarka ka haya mustaqbalka marka hadaad aragto qof sidinka mustaqbalku ku dalacay war ka daadhe warwarkiisa iska daa waxa qawaacid kamida كيف تواجه النقد الآثم لابد أن تعرف كيف تواجه النقد الآثم dadka ka soo horjeeda ee kugu kacsan sidaad iyagana arrinkooda uga dabaalan lahayd qofku hadduu dadka iska badaayaba isagaan la daynayn diiqad badanna waxa ku abuuraya dadku daba socdaan kuba daynayninba taas iyaduna wax jira ah oo dadka in badan nolosha ka xumaynaysa waxaad ku soo ururiba taas oo aad kaga nasanba qaar baa ilaahay iyo rasuulka caayay adiguna miskiin yar baa te ogow
ilaahay addoommaha waxaana wanaag ahayn dee ulama yeelna haddana intii af kala qaadaan ba ilaahaaga waxaa ku sameydhaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa naxariistii ummadda waxaan khayr lahaynba ulama imanba wax sharaba haddana nebigaaga waxaa ku sameeya bay leeyihin adiga balka war adigoo dee dadkii dhibka lahaa ku jira adigana maxaad u malaysanaysaa in wax lagaa sheegi waayo nin shaacirabaa wuxuu ihi xasadulfataa idaa lam yanaaluu sacyah faannaasu acdaa'u lahu wakhusuumu ninkaa dhallinyarada ah way xaasideen buuhi markay dadaalkiisii gaadhi waayeen dadkuna cadow iyo kuwa la murmay u noqdeen marka arrintaana ku xisaabta haddii aad qof yahow doonayso an takuuna maqbuulan lada aljamiic saliiman min alcuyuubi cinda alcaalami hada mustaxiil dadkoo dhammi inay soo wada dhoweeyaan dadkoo dhan agtooda midaan ceeb lahayn haddaad taa doonayso arrintaas waa mustaxiilaha ku daalin ka naso markaa mushkiladda ah maxay dadku maxaa igu sallideen dadka taana halkaa iska dhig wixii wanaagsan wad waxaa wax kaa sheegana weydaaro qawaacidka waxaa ka mida laa tantadir shukran min axad qawaacidka sacaadada sababaheeda ah waxaa ka mida cidna mahadnaqa ka doonin cidna mahadnaqa ka doonin ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala qofka khayrka sameeya ma waayo jawaabtiisa laakiin laa taqdab idaa jaxaduu macruufak ha cadhoonin markay macruufkaaga qiri waayaan dadku laa lishayin ilaa liannaka axsanta ilayhim wax kalena uma diidayaane waad ka wanaag badatay ama iyagaabaad wax siisa dadka qaarkood baaba haddii aanad waxba ku tarin aan waxba kaa sheegin kuna dabagelin mushkiladooda ay bilaabantaa un markaad wax ku tarto soo maaha markaad wax ku tarto unbuu bilaabayaa balaayadiisa marka aanad waxba ku tarin ama aydaan isdhexgelin arin iyo aqoon iyo adduun iyo markaanad waxbaba ku tarinba maba ku taataabanayo markaad u bilowdaabuu isna ku bilaabaya markaa ha odhani warkan markii horeba imuu daba socon jirine ama ummaddii maxaa igu sallida imminkaa baan ugu waxtaroonahaye ha odhan ilaahay baa wuxu uhi wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum allaahu warasuuluhu min fadlih nimankaa munaafiqiinta ahay waxay dadkaba ku daba socdaan ilaahay iyo rasuulkaa wax siiyey waxa uga daray deeqdu ilaahay siiyey iyo dadaalku rasuulku u galay munaafiqiintuba nebiga waxay ugu darnaayeen markuu wax siiyo markuu ilaahay u kordhiyo deeqda markaasay ugu darnaan jireen saas weeye carabtu markay arrintaa daraaseeyeen waxay idhaahdeen laa tasnac ilmacruuf laa yaji'ak shar dadka khayrba ha u samaynin si aan sharba kugu iman waa ma aha wanaagsanayn laakiin waxay arkeen waxa mushkiladda ugu badan inay tahay un dadka wixii ay wax siiyaan sidoo kale libaax wuxuu kugu bartuu kugu dilaabay soomaaliduna odhan jireen adigu taa ha yeeline icmal ilkhayra liwajhi illaahi tacaala wixii khayra ilaahay wejigiisa u samee ila ilaahay saasuu ku ammaanay muuminiintu waxay leeyihiin innamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuran ilaahay daraaddii baanu wax idiin siinaynaaye abaalmarin idinkama doonayna iyo mahadnaqtoona gaaladu waxay ka xanaaqaan marka macruuf ay cid u sameeyaan ee thankiyuu la odhan waayo waad mahadsanta kii wuxuu sameeyey ama wax siiyey markuu waad mahadsantay odhan waayo soomaalida iyo ay idhaahdaan miyuu waalan yihin ilamabuu hadalbe jawaabba imuu siininbe waa maxay muxuu odhan waayo waad mahadsanta marka yadlubuuna shukra min alkhayr ilaahay baanay shukri ka doonaynin dad kale shukriga ka doonayaan nin shaaciraa waxa uu arkay ninkii uu tababaro u dadaalay dadkana uu ku soo dhex daray oo maanta uguba neceb dad markaasaa wuxuu uhi ucallimuhu rimaayata kulla yawmi falama shtada saaciduhu ramaani inankaa isagay arkaysaan buuhi maalin walba waxaan bari jiray shiishka iyo rag siduu isaga celin lahaa mar alla markuu xoogaystuunbaabu aniga igu bilaabay buui aniga ayuu igu bilaabo wuu igu dhugtamay buui marka sidaasoo ficilkiibuu sheegay qowlkuna saasuu la mid noqonayaa hadday saaxiibbada tahay hadday dadkaad madaxda u tahay haddii ay ehelka tahay
in badan baa abaalka la siiya uga daraa hala yaabin haddaba nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi laysa alwaasilu bilmukaafi qofka qaraabada xidhiidhiya lama yidhaahdo qofka markay wanaajiyaan dadka wanaajiya qofka abaalguda lama yidhaahdo waasil qaraabo xidhiidhiya lama yidhaahdo ka dadka u abaalguda qaraabo xidhiidhiyaha waxa la yidhaahdaa qofka abaal mariya qaaraan abaalba ku lahayn ee hadday doonaan inkaaraba u leh waa tan nafteedu ka hadlaya nabigu calayhi salaatu wasalaam qawaaxidka waxa ka mid ah min asbaab السعادة الإحسان إلى الغير انشراح للصدور inaad dadka u samafasho laabtaaday raaxa ku reebtaa inaad dadka la colaatantana ka ugu horeeya diiqadaysani waa adiga macnaa in gacani kugu maqan tahay ama dulmi kugu maqan yahay waxa ka dooroon in adiga gacani kaa maqan tahay ama abaal aan lagugu lahayn ama wax kaa maqan yihiin adiga wa min asbaab السعادة الجميل كاسمه والمعروف كرسمه والخير كطعمه waxa macruufka la yiraahdaa sida magaciisu buu la mid yahay jamiil wax wanaagsan weeye wanaaguna waa saasun buu wanaagsan yahay sida magaciisu wanaagsan yahay wanaagsan yahay marka waxa la yiraahdaa awwalul mustafirin is'aad an-nas humul mutafaddiluna lil is'aad bihada al is'aad dadka had iyo jeer ugu wanaag badan waa kuwa wanaaga sameeya haddaad wanaag dad u samayso wanaaga cidda ugu horeysay helaysa oo adiga waayo waad nasanaysaa inaad waajibkaagii gudatayna waa dareemaysaa inaanad godobaysnay baa dareemaysaa in adiga wax kaa maqan yihiin baa dareemaysaa kullu dalik arrimahaasoo dhan waxay iscaadka waxyaabaha keena weeye iscaadku maaha intiqaamka iyo argoosiga laakiin iscaadku sacaadada waxa weeye dulqaadka intaad gaban lahayd in adiga lagaa gabado mid baa xoolo kaa dhacay soo maaha ha ku goonaatee ugdaa mid baa been kuu sheegay ha kaga daba tegin waxbuu kaala maqan yahay ha kaga daba tegina ku daa mushkilad kaluu keeni lahaa iyo diiqad kaluu ku gelin lahaabaa halkaasay kaaga odnaanaysa ninbaa dadka had iyo jeer waxuunbuu amaahin jiray markay idhaahdaan amaaha markay ka doonaan wuxuu ogyahay inaanu soo celinayn intuu ku soo noqnoqon lahaa su'aalo badan uu weydiin lahaa wuu amaahinayaa uun marka 10 jeeroo wax weydiin lahaa halkaa mare uu amaahiyey ayuu kaga hadhayaa inuu markan la baxsanayaa buu ogyahay la baxsada buu leeyahay soo noqonin ha firdhado sidaasi ayaa maaragtay ihsaan sacaadadu ay tahay wama li ahadin indahu min ni'matin tujza Abu Bakar buu ilaahay amaanayo wuxuu yiri cid gacan ku leeyahay ma jirto isagu baa dadka abaal gudi jiray isagu ciidinaba waxba kama abaal laguma lahayn من أسباب السعادة وحكمنا نلوش النفس كذا وحيابها كوكيني كره أدرد الفراغ بالعمل فراغ معناها تشانس كأدلاده يقع عن مرنانت وحقت كدشا وحقبط معناها قعان مرنان وأديقوا إسكا فارقه أن وحبهينين هتاقنانين تاسي نلوش ندن كذا السعادة إذا ويلو مساح لكن وين العمل كوكبطاه waad ku buuxisaa walow riyaadayo jirkaaga tababartanaha ahaatee oo waxa la yiraahdaa al-faariquuna fi al-hayaa hum ahlu al-irjaaf wash-shaa'i'aat dadka faraaqa leh waa dadka ugu badan ee wararkana wareejiya ummadana khalkhaliya dadka laakiin shaqada badan haysta waa dadka uguna aamus badan waxa la yidhidana ugu yaraysta Soomaalida ma arag بلا شقة وبدين مركا قفك تمر الآن ما يتمرتي سوحه كهول قلنا ياون شائعات وحبضان الله الشيء اللي وريتيو تتكور ورلقوا أبورو قار لا إسكدرو تقول أفتن كيبو وضع يفرد كدر مركا دو قفك الشقة تجي لها هوشا نمتي معدين الله منافقين إذا يوحوا لرضوا بأن يكونوا مع الخوالف لمن كان يران تو وحي رالي كالنقدين dumarkii caruurta guryaha laga tagay inay la fadhiyaan way ka soo haraan raggii waaweynaa jihaadayay ee faraaqooda amal cibaada oo dagaal ku buuxinayay sidoo kale waxa la yiraahdaa idbahil faraaqa bisikiin al-amal culimada adibadu waxa ay sheegayaan boqolkiiba konton dadka daraasada sameeyay xataa muslimiinta ahayn
boqolkiiba 50 sacaadada waxa ay qaabilsan tahay qofku inuu camal qabto oo muruqyadiisa uu maalo sacaadada qayb weyn bay ka tahay saadaradeed ba had iyo jeer maskax maalka waxa ka sacaado badan dadka muruq maalka oo dadka dhismaha iyo kuwa beeralayda iyo yuqarriduuna bil anashidi kal asafir balaa way iska heesayaan sida shimbiraha kale ayaa hawleed ayay wataan iyagoo muruqooda maalayo qosol iyo farxad ku nool halka dadka mufakkiriintii yataqallabuna ala al-furush furaashyada ay isrogrogayaan ee ay seexan laayihiin marka taasina aad bay muhiim u tahay oo si aynu uga nasano dhibaatada ay haysata wax badan waa inaynu shaqooyin samaysanaa shaqooyin inaad adigu shaqo samayso weey oo aanad soo lignaanin una soo fadhiin si noloshu macna kugu samayso marka dadkan faraha badan ama istilaya ama rabshada abuuraya ama tahriibaya ama buuq ka dhax socdo hadii qolaba meel lagu jeheeyo sacaada iman lahayd sacaadada mujtamaca ayaa iman lahayd waxa kamida min asbaab sacaada la takun imma hanoqonin qof nacam leh oo dadka uu jiibiya حديث ما لكن هو أثر موقوف السيدة الصحيحة ما لها قاركود إنه حديث هاي حسان وإنه مرفوع هاي وحكى صحيح حسن إنه مقالة عبد الله بن مسعود وياي مركا إن هذا ضوء شخصية هذا إلا وضمها لا تنسى نفسك ولا شخصيتك لا تنسهر في الآخر أو في الآخرين نفت هذا إلاوي هنات الصيني تدك كلناها كل حمل من ويان لغا دحدلin dad nin weynta yaan laga dhaxadlin aqli aad leedahay iyo cilmi aad leedahay ku hadal iyo khibrad aad leedahay oo waxaad ogaataa khalqiga sidan ilaahay muuqaalkooda u kala duway inuu u kala duwan yahay aqligooda iyo macnawiyaadkooda marka hadii aqligaaga la isticmaalo oo laga dhaxadlo maalin walba in yaro lagu kiciyaaba lagu soo sheegi in yaro lagaaga cadhaysiin baa lagu laqimi daroobiska lagaaga cadhaysiina lagu dhibqinaya cirkaasad maraysa haddana waa laga dajin haddana waa lagu dhibqin marka waxaad noqon doontaa qof hadallo iyo fikrado dad kale la karaya ee wixii lagu sheegay ilaahay wax aqliga kugu siiyay inaad waxna diido waxna ka doodo waxna aqbasho marka waxyaabaha sacaadada nolosha keena waxa kamid ah nafiska inaad aqligaaga iyo cilmigaaga ku socon karto ilaahay baa wuxuu qad calima kullu unaasin mashrabahum wa likulli wajhatun huwa muwalliha qof waliba mashrab buu leeyahay meel uu kacbo afkaartiisa ka qaato qof waliba qiblo u jeedsadaa buu leeyahay marka adigu qof uu qibladaada ha ka dhigan waxa kamida min asbaab sacaada kuwa muhiimsan muslimku leeyahayna kamida al-iimaan bil qadaa'i wal qanaa'ati bihi inaad rumaysan tahay wuxuu ilaahay qadaray kuna qanacsan tahay aad bay muhiim u tahay taasina إلهي بأوحر ما أصابا من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وحكست أي سوغار أو مصيبة عري دول إلهي هرو سي قري مصيبة انتاني صوابا بحين بابي سي قرنيد با سيدا درادد عقيدة داس مركي لابتا دا قشو وحالا إذا سارت البلية عطية والمحنة منحة balaayadu waxay noqonaysaa barxad mixnada musiibada kugu dhacdayna waxay noqonaysaa minha deeq bay noqonaysaa ila wad ka macaashto wad ka faa'iideysay man yuridillahu bihi khayran yusab minhu nabiga wuxuu qofku ilaahay khayr la doono musiibo ayuu taabsiyaa qofka ilaahay khayr la doono buu rasuulku leeyahay musiibo la'aan ma noqdo islaamu waxay yiraahdaan shaydaan baan bukoonin soo kamaad baqal shaydaan ayaan bukoonine insigu wuu bukoodaabay ku leeyihin macnaha muslimka balaaya ma seegto waa kaa nebigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam qofku ilaahay khayr la doono musiibun buu ku ridaa hana odhanin si aan sacaadadu kaaga xumaanin low annii facaltu kada wa kada lakaana kada wa kada fa ina low taftaxu camala ashaytaan walaakin qul maa qadara allah wamaa shaaa facal haddaan waxaa samayn lahaa ha odhanin laakiin waxaad tidhaahdaa ilaahay baa qadaray wuxuu ilaahay qadarayna wuu hirgelayaa sidaa isku qanci marka inaad qadarka rumaysan tahay wax badan bay qaanacaad ku siisaa waxay ku siisaa nolol wanaagsan
wixii ku dhaafayna uma warwaraysid waxa aad heshayna lama yaabaysid mid walba ilaahay baa kuu qadaray baad leedahay arrintaasina waa arrinta tobnaad ee keenaysa min asbaab sacaada qofku isagoo balaayo weynaba haysato iskana faraxsan yahay iskana qoslayo oo iska nafis yahay intaasaynu ku joojin insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu